السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله maanta waxaan rabaa inaan halkan ku duubno cashar aad muhiim u ah casharkan waan ugu talagalay dadka igala socda dhankaas iyo YouTube-ka إن شاء الله maanta waxaan bartan ku duubi doonaa cashar muhiim ah oo ku saabsan daily bias-ka waa maxay daily bias inaan isla fahanno iyo sidoo kale sidee time frameska layskugu xidho ama waxa la dhahdo multi time frame analysis-ka adoo ka imanaya higher time frame ilaa iyo to lower time frame taas insha allah maanta raba inaan isku xidhno si simpla fudud mataqaana aan complicated ahayn sida ugu fududeed u fahmi karayso inay tani ahaato sidoo kale waxaan idin ogeysiinayaa insha allah in kuliyaddeena dabka afkis websitekeeda haddeer live yahay iska diiwaangelin kartaan casharadina halka ay ku wada jiraan dhammaantood life coaching sorry private mentorships iyo wixii oo dhan inay dib u furmeen halkaasaad kala socon doontaan insha allah websiteka marka cashirkeena marka insha allah hore u galno horta waxaynu ka bilaabaynaa waa maxay daily bias daily bias waa maxay daily bias haddaynu soo ururino soo koobno daily bias waxa weeyaan af Soomaali ahaan haddaynu kusoo ururino waxa weeyaan jihaynta maalintaada intaasunbaa kuleto af Soomaali ahaan uma malayntaa inay u dhaafi karaysaa inaad maalintaada jihayso maalintaadu inay jiha lahaato inaad tidhaahdo maanta tradekan helaya waa inuu dhinaca ahaada maanta tradekan gelaya waa inuu dhinaca ahaada waa inuu buy or sell jihada uu ahaanayo waa inay kuwa caddaato sidoo kale waa inay kuwa caddaato sida time frame analysis-ka ama time frame-yada sidaad isugu xidhan lahayd oo sad isugu xidhaysaa top down analysis waxaa laga soo bilaabaa ka ugu sarreysaa ama weekly kasoo bilow ama daily kasoo bilow higher time frame to lower time frame oo intrigaaga halka ka gelayso 3 minute 5 minute 1 minute kolba ka gashay intrigaaga inay intaas isku xidhnaato oo multi time frame analysis-kaaguna inay isku xidhnaadaan marka intani inta kaliya laga baahayna waaba intaaba waxaa jira hal marka aynu isticmaali doonno oo methodka kaliya inoo fududin doona waa methodka next day candle theory waxa la yidhaahdo aynu isticmaali doonaa theorygaas aynu isticmaali doonaa waa maxay inaad saadaaliso candleka maanta ka ku xiga ama waxa la dhahdo next day candle theory taas ma isla eegi doona insha allah marka waan kala qaadi doonaa qaybta koowaad waxaan insha allah isla eegi doonaa higher time frame-ka qaybta dambana waxaan isla eegi doonaa multi time frame analysis-ka oo inuu soo dhici doono lower time frame-ka let's see insha allah aynu hore u galno marka tusaalayaashan insha allah waxaynu ka horreyn doonaa qaybteenna magaranaysaa higher time frame-kaasaan hore u sheegnay qaybteena koowaada marka waxaynu kaga bilaabi doonaa hortu maxaynu u baahan nahay si aynu daily biaskeena u saxno higher time frame-ka waxaynu u baahan nahay horta inaynu candle by candle u fahanno meelaha waxa laga yaabaa move by move inaynu focus ka saarno laakiin halkan first thing first waxa weeye inaynu hortu bal candle by candle u fahanno marka ugu horreysa hortu candleka sidaynu u isticmaalayna wanagina waxaan isticmaali doonaa waxaan dhahdaa next day candle theory sooma marka waxaan isticmaali doonaa candlekan tusaalaan soo qaadanaya marka candlekan whatever uu ahaanayo buy or sell marka kan sellka baan tusaalahaan soo qaadanayna candlekaas wuxuu leeyahay soo maaha laba meelood high and low soo maaha so labadaa week ma leh wiiga highga iyo wiiga hoose lowga labadaa week baa mar walba inaga inoo more focus labadaasaynu focus ka saarayna marka ugu horeysa maanta la joogaa soma shalay baa la joogaa maanta marka rabna inaynu taxliilino for example waxaynu saaraynaa lowgii waxaynu calaamadinaynaa maalinkii hore horta iyo haygeeda labadaasaynu calaamadinaynaa markaynu hayga iyo lowga calaamadino waxaynu eegaynaa candlekan ku xigaa muxuu samayn doonaa markaynu candlekii mataqaanaa uu furmo saa u furmo candlekii markuu qaado candlekan kan waa kii daraad kan waa kii daraad soma tusaale soo qaadanayna kan waa kii daraad toole kan waa kii shalay toole marka waxaan rabnaa kii maanta muxuu samayn doonaa kii daraad baa isaguna furmay wuxuu qaaday haygiisii u qaaday deetana wuxuu ku xidhmay bodigiisi wuxuu ku xidhmay haygii daraad toole banaankiisa yaraan ku celin candle waa candlekii daraad toole kanna waa kii shalay candlekii daraad haygiisa iyo lowgiisa aynu calaamadinaynaa tan waxaynu eegaynaa kii shalay toole muxuu sameeyey candlekii shalay toole wuxuu sameeyey wuxuu qaaday haygii candlekii hore ee daraad toole wuxuuna ku xidhmay banaankiisa halkaan isla fahni sooma
labadaasuu inoo sameeyey. haygiisu inoo qaaday wuxuuna ku xidhmay wiigga xaggiisa sare wuxuuna ugu xidhmay si boriya. marka maalinkaas kale waxa la dhahdaa waa continuation. waa maxay? maanta waxaynu ka sugaynaa inuu kanalka ku xiga inuu noqdo candle buyer. so halkan aan cagaar ka dhigay, halkan aan cagaar ka dhigay. candleka ku xiga maxaynu ka rabnaa inuu noqdo candle buyer, inuu noqdo simple waa inta. waxaad calaamadinaysaa candlekii daraatoole haygiisa iyo lowgiisa. dan waxaad imanaysaa kii shalay tole muxuu sameeyey. hayga mise lowgu qaaday, haygu qaaday, banaanku ku xidhmay soo ma, bari buu ugu xidhmay. that means inay maalinkaasi tahay maalin bay ah, maalinkeeda oo maalinkeeya maalinka qadiga kugu xigtay ah. maanta dee ku jirtay, tan waa daraad, tan waa shalay, tanna waa maanta. intaas maad eegaysaa marka. waxaad eegaysaa daraatoole haygiisa iyo lowgiisa. waxaad imanaysaa kii shalay toole muxuu sameeyey, candleka ma lowgu qaaday mise haygu qaaday. hadduu hayga qaaday suu ku xidhmay, ma bari buu ku xidhmay mise wuxuu ku xidhmay week. okay, waxaan ka soo qaadaynaa tusaale ahaan kaaba isla fahan inuu haddaba week ka xidhmay. intuu qaaday haygii daraatoole shalay toole ayay datana week ka xidhantay, gudaha ayay ku xidhantay. candlekii hore gudihiisa ku dhex xidhantay, waayo areadayna calaamadinay waa areada daraatoole. waa maxay? previous daily high and low ayayna calaamadinayna. markaan previous daily highgii previous daily lowga calaamadino, candlekii shalay tolo samaysmay ma banaankiisa ku xidhmay mise gudihiisa ku xidhmay. week ayuu ku qaaday, guduhu ku xidhmay. maxaynu ka sugaynaa maalinkeeda ku xigta inay noqoto iyadana waa sell, waa reversal. okay, waxbaan kuu sheegaya marka. haddii candlekaagu intaas baad isticmaal saddexdaa istibab, kii darhad baad calaamaysa haygiisa, shalay baad eegaysaa maxay samaysay hay mise low bay qaaday. maanta maxayd ka sugaysaa markaa? haddii ay samaysay labadaas scenario mid, hadday qaado hayga ay qaado ay bari ku xidhmo tusaale ahaan, waxaynu ka sugaynaa inuu noqdo inuu sii socdo. hadduu sameeyo mataqaanaa week uu ku qaado oo gudaha ku xidhmana, waxay rabnaa inuu noqdo reversal ama hoos usii socosho, inuu dib u socdo. labada dhinacbaba scenario kale aynu ku aagno. wuxuuba qaaday lowgii, waa isla intii salka isna waxaan eegaynaa lowgiisa. lowgii buu qaaday. hadduu lowga qaado candleka ku xiga, waxaynu ka rajaynaynaa inuu noqdo candle continuation ah oo noqonaya maxaysna sell, inuu sii noqdo maalinkaas, leanno sell baynu halka ka calaamadsanayna soo mee. okay, intaas maad ugu eegaysaa. haddii uu noqdo ka waran week, hadduu ku qaado sano kale uu sameeyana, waxaynu ka sugaynaa maxay? the next day candle theory-gan muxuu noqonayaa? theory-gan maalinka haysana ama scenario haysana waa inuu noqdaa scenario buy ah, inuu noo noqdo inuu baxan clear waa inta. candlekani wuxuu ku xidhmay buy oo sell ba ku xidhmay. waxaad u kala eegaysaa wiigga halkan. sidoo kale maxaad sii eegaysaa marka? aad eegaysaa kuwana xagga dambe ku arki doona insha allah muuqaalka qiimihiisa dambe, partida dambe. waxaad eegaysaa iskama eegayso candleka keliya kuma salaynaysa, waxaad ku salaynaysaa oo kale aad raacinaysaa scenaariyihii kale ICT aynu ku isticmaali jirnay ahayd. mataqaanaa drone on liquidity-gii baad eegaysaa, fair value gaabiyadii, breaker block-yadii, all waxaad isticmaalaysaa, kuwaana waad ku daraysaa. laakiin waa maxay kani? waa ka ugu biiska u ah. waaba intaaba tusaale bal maanta kusoo qaaday. waxaynu ka bilaabaynaa barta. halkan waxaad ku aragtaan in lacagtani waxaan ku jirnaa JBBSD. waxay inoo qaaday daraatoole haygeedii. tusaale ka soo qaadana marka daraada haygeedii baa laynoo qaaday, deetana muxuu ku xidhmay? banaankiisa ku xidhmay. maalinkan maxaynu ka sugaynaa ka rajaynaynaa inuu isaguna noqdo maxay? sii socosho kale, inuu sameeyo maxay? bay kale inuu inoo sii noqdo aynu rajaynaynaa. okay, let's see. meel kasta target wayna lahaata. hadda waxaa xagga dambe ku arki doona mar inaan confuse garay. waxaan rabaa inaynu focuska ku saarna kan aynu maanta qaadan. okay, candlekeenii maalinka ku xigay muxuu sameeyey? isna wuxuu sii qaaday haygii kale sii qaaday ilaa laga gaarayo haygaa kale un daba soconayo bricekaas. okay, maxaa la qaaday? maxayna mahdii carbeedna kulli yowm mush ciid. يعني ما حد تيريجن إنه every day وصفي عنه شقيني ما صار هنا بكو أركسها إنه كان قاضي لو يجيبوا قاضي جذوه كحرمي وحلا قرب إنه كان نقض سيناريو كحجين إنه باين نقض أبوها سما هو خلاف فكرة مركا استراتيجية ده معي كقول بس لسه بقول كيف بقول ما شقين لكن هو ما حي والسيناريو هو مهم سن بتقعنا إلا نقصرون لكل تجاجة أتكو رنجرين كرت برايس أتكو سريح كرت أتكو بشكرين كرت سوية. أوكي
aynu kala balay garayno maxaynu ka sugaynaa maalin kalena inuu isna hayga inoo qaado uu inoo noqdo maxay bay okay wuu inoo noqdo maxaynu rajaynaynaa weli maxaa laynoo qaaday kiina muxuu qaaday wiigeena wuu subgarey listii maxaa dhici doona waan eegi doonaa maalinkan ma raba inaan convincent ku furan waxaan rabaa clearta inaan focus ku saaro un garanaysaa pricekeena aan maanta qaadanay ah next day candle theory-ga quraata okay soo soco haddana kan kale oo kaalay haygiisa calaamadii waxaan rajaynaynaa macnaha kana inuu isna noqdo inuu isaguna buy noqdo aynu ka rajaynaynaa letsisna okay muxuu sameeyey haddaba intuu inoo qaaday haygii ayuu inoo sameeyey maxay guduhu ku xidhan maalinkaa waa laynoo gasay laakiin scenario kale inoo baxay letsi waxaynu sheegaynaa balina dhici karto waxaanu ka rajaynaynaa marka wuu qaaday guduhu ku xidhmay waa week okay waxaanu ka rajaynaynaa maxay inuu inoo noqdo maxay target maxay inoo noqon doontaa lowga candlekan kale ayaa haddeer target inoo noqon doonta waxaynu eegi doonaa bal inay shaqaynaysa iyo inaanay shaqayn doonin okay may shaqayn sooma intaad ii sheegaya waxaad ku base garaynaysaa all analysiskaaga kale xagga dambe ku arki doonaa maxaa halkan loo khilaafay maxaa loo sii wadi waayey halka dambe iskula arki doonaa okay waxaa laynoo qaaday haygeeni kale let's see haddana waxaan sii calaamadsanaa un keenan kale okay maxaa dhacday haddana wuu ku failgaroobay labada dhinacna midna muu qaaday sanoo kale hadday dhacdona halkanaan israaciy waxaan dabin partiya dambe inaynan wax damba kusoo noqon okay hadday sidani dhacdo waxaa la dhahdaa indecision q inaanay maalinkaas maalin bilaa go-aana tahay escape maalinkaa ka dambaysa ha trade garayni sababtuna waa maxay yani jiha ma haysatid ilaa iyo aynu xagga dambe ku qaadan doonno liquidity-yada dambe iyo drone liquiditieska dambe loo socdo iyo halka la target garaynayo iyo price garanayso oo halka la susi wada aad garanayso mooye ma ha trade garaynin haddaynu scenario-hina kalena ku eegnana waxaynu u badinaynaa maxayna noqoto buyga lianno yaa watay priceka maalmahanbaba waxaa watay buygaa watay soo maha inagoo ku base garaynayna un halkeena ka eegaynaa priceka inuu yahay momentumkiisu buy uu yahay inagoo ku base garaynayna mooye laakiin waxaan kula talinayaa escape haddaad trade garaynaysaanana halka dambe ku wada arki doona sida loo trade gareeyo maalinka caynkan oo kale wayn isla arki doonaa insha allah okay waxaynu eegi doonaa kanalkeena kanalka ku xigaa wuxuu sameeyey okay momentumkana wuxuu sii raacay buygi intaas weeye gebigeeda horta next day candle theory-guba intaasuu ka hadlaya selkan idinku ku base gareeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii su-aalana halka hoose igula soo wadaaga insha allah waxaad ka caawin karaan waan idinka caawin doonaa su-aalaha ka jawaabi doonaa insha allah